dalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay inuusan sii wadi karin dulqaadashada siyaasadda foosha xun isla markaana gurracan ee dawladda xukuumadda Washington ay kula dhaqmisay dalkeeda 70 sano ee ugu dambeeyay iyadoo kolkii ugu horeysay arbixin cusub u isticmaashay habdhaqanka xukuumadda Washington tiyo dawladda dalka Mareykankuna ay ku dhawaaqday hanaan cusub oo ay sheegtay inay kula dhaqmi doonto isla markaana ay u adeegsan doonto la tacaalista tartanka labada dal u dhaxeeya iyadoo tartanka labada quwadood ee dhaqaalaha ee adduunka ugu waaweyn uu u muuqdo mid hadeerto marka dambaysa sii fool xumaanaya isla markaana saaray dhab aad iyo aad u fool xun cagta marka hore daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waran oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xiiso badan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu uga digay dhigiisa dalka Mareykanka Anthony Blinken in xukuumadda dawladda dalkiisa Beijing aysan qaadan doonin si socoshada siyaasadda foosha xun isagoo kolkii u horeeyana ugu yeedhay siyaasadda dalka Mareykanku inay la mid tahay qadhiidh ay doonayso inay mar walba gogoto dalweynahooda ama waxa afka qalaad loo yaqaano Salam Slicing Tactics wuxuu ku tilmaamay in xeerada noocaas oo kala xeeradaha gogashada iyo qadhiidhka ee la yaryaraysanayo dalka aysan noqon doonin mid ku sii socon doonta Beijing balse intaynan eegin horta hadalka kulul ee ka soo baxay Wang Yi marka u horeysa waa maxay waxa dawladda dalka Shiinaha xoqaya 70 sano ee ugu dambeeyay dawladda Mareykanku waxay isticmaalisay siyaasad ay u aragto xukuumadda Beijing in ay tahay khiyaano waxayna la mid tahay siyaasadda dhinacna laga qancinayo dalka Shiinaha dalweynaha ahaantiisa dhanka kalena mar walba lagu hubeynayo lana si wiiqaya awoodiisa kala qaybsanaaneedna awoodiisa midnimada lagu bedelayo kala qaybsanaan xooggan siyaasadda dawladda dalka Mareykanku ay kula dhaqmayso waxa loo yaqaano One Policy China ama China One Policy dhanka kalena ay kula tacaamulayso xukuumadda goonigosadka jasiiradda ku taala badweynta Pacific ee Taiwan ayaa iyaduna waxay tahay mid aad u gurracan 70 sano ugu dambeeyay dawladda Mareykanku in ay soo tarto cilaaqaadka ay la leedahay Taiwan mooyaane haba yaratee waxba hoos uga sii dhacaya sanadkan dawladda dalka Mareykanku waxay ansixisay qaraarkii ugu ballaadnaa ee dhaqaale hor leh agab military iyo sidoo kale heshiisyo waaweyn oo ganacsi lagu furanayo xukuumadda Taiwan taasoo ay ugu talagashay in 5 sanadood ee soo socota ay lacag 5 bilyan oo dollar ay u hurto iyadoo sanad kasta la sii doono Taiwan ilaa iyo lacag 5 bilyan oo dollar 1 bilyan oo dollar arrintaasi waxay socotay muddo aad u badan marka Shiinuhu uu mar walba qaylqayliyo isla markaana uu cabasho arrintaasi ka dhiibo waxa lagu qancinayay waxa loo yaqaano single China policy oo loola jeedo siyaasadda in ay dawladda Mareykanku ay u aragto Shiinuhu inuu haldal yahay haddaba maxaa ku hoos duugan single China policy marka oo horeysa ereyga marka la eego grammarka ama luqadan Ingiriisiga la yiraahdo oo si gaar loo fiiriyo ama se la turjumo oo ay lagu soo hooriyo afkeena hooyo oo ah naxwaha waxa loo yaqaano ama hadalka dilucdiisa waxa ay la mid tahay in dawladda dalka Mareykanku ay siyaasad ahaan Shiinaha oo ku jirto Taiwan u aragto hal dal oo isku dal ah laakiinse marka loo sii fiirsado arrintaasi waa mid harow maran ku foorinaysa xukuumadda dalkaasi Shiinaha sidaasi waxaan u leenahay Taiwan dawladda Mareykanku waxay la leedahay cilaaqaad heer walba oo ka mid tahay mid diblomaasiyadeed oo ganacsi mid markaas dhaqaale oo xooggan mid kale oo faa'iido wadaag iyo dheef isweydaarsi oo dhinac walba leh wax soo saar haday tahay marka ay heshiis doonayso inay la gasho oo xataa ay ku jirto heshiis military wax fasaxa iyo wax haba yaraatee ogolaanshaha oo baahna xukuumadda Beijing marka sidaas si guud loo eegana waxa ay dawladda Mareykanku mar walba ay ugu madax buuxinaysaa xukuumadda Beijing in ay u aragto dal kaliya tii ayaa hadaba waxay 70 sanadood ku qaadatay dawladda dalka Shiinuhu inay hadeerto ka gilgilato sababta ay Shiinuhu muddadaas inta dheer hadaba uga aamisnaayeen waa 3 arrimood dalka Shiinuhu waxa uu doonayay inuu soo kabto dhaqaale ahaan 40 sano ugu dambeeyeen waxay ku jireen halganka loo yaqaan kobcinta dhaqaalaha iyo gacan sareynta iyaga oo 20 sanadood ay ugu sii dabeeyeen gacan saar dhinaca tiknoolajiyada la lahaa dalka Mareykanka oo ay aad uga faa'iideysteen kadib markay ka daba dheegteen wax kasta oo dawladda Mareykanku samaysay Mareykankuna uu markii dambe noqday laga bari
qodobka saddexaadna waa dowladda dalka Shiinaha oo mar walba doonaysay in inta ay ka cududeysanayso sidoo kalena ugu yaraan meeqaam ahaan military ahaan ay soo gaarayso dowladda dalka Mareykanka iyo dowladaha kale ee cadawga ku ah gobolka ku xeeran oo Hindiya ka mid tahay iyo sidoo kale Japan in aysan marka u horeysaba aysan isku loohin Washington. maanta waxay u egteen haruuki buuxsamay isla markaana dowladda dalka Shiinaha waxay dareemaysaa xornimo. 70 sano ugu dambeeyay dowladda dalka Mareykanku waxa iyadu mar walba ay dhahaysay Taiwan way ka duwan tahay nidaam ahaan xukuumadda Beijing ee xukuuma xisbiga Communist-ka ee shuuciga ee wadankaasi. marka si loo fiiriyo waxa oo dowladda dalkaasi Taiwan waxay qabataa doorashooyin dowladda Mareykankuna marmarsiyo ay arrintaas ka dhigataa waxay tiraahdaa waa meel ay dimuqraadiyad ka jirto. taasi Mareykanku waxay u sahashay inay galaangal toos ah u yeelato xukuumadda Taipei. jasiiradda Taipei waxay geysay hub agab sidoo kale maraakiibteeda oo ay ku jiraan kuwa hubka nukliyeerka xambaara oo ka mid yahay xambaaraha ama markabka weyn ee diyaaradaha tuurta ku ritay loo yaqaan USS Ronald Reagan ayaa gacanka loo yaqaan Taiwan ka dusa markuu doono iyadoo dowladda dalka Mareykanku mar walba ay tiraahdo waxaanu raacanaa nidaamka caalamiga ah ee loo yaqaan mashaaxidda iyo qulqulka biyaha caalamiga ah annagoo mar walba ka faaganana ayay tiraahdaa barbiyoodka dowladda dalkaasi Shiinaha ee EEC loo yaqaan ama aaga ganacsiga ee badda ee loo yaqaan the economic exclusive zone. haddaba laba arrimood oo waaweyn ayaa dhacay toddobaadkan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu khadka telefoonka u soo diray dhigiisa dalka Mareykanka Anthony Blinken markii wadahadalladu ay laadeen oo iyaga gaar u ahaa ayaa waxa warbaahinta warmutiyeed soo mariyay xukuumadda Shiinaha gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo laga soo xigtay qaar kamid ah hadaladii ay isdhaafsadeen labada hogaamiye. hadal kamid ah kii ugu adkaa ee dowladda dalka Shiinaha ay soo saarto kaasoo ay ku ladhay kuna baritaartay eray bixin cusub oo cajiib ah ku tilmaantay inaysan dowladda dalkeedu aysan yeeli doonin waxay ku sifaysay gogasho iyo waliba in la qariiro. waxay sheegeen in xeeladaha qariirka ee lagu wada wadankooda hadeerto ay ka daashay saadaradeedna ay uga baahan tahay xukuumadda Washington inay gabi ahaanba dib uga noqoto siyaasadaheedii guracnaayo 70 jirka ah tiyo ay dowladda dalka Shiinaha ay ku ladhay in ay hayso meel ay tiraahdo qaniya kaafajis. inkastoo tafaasiil laga bixin handadaadda dalka Shiinaha laakiin way iska cadahay meelaha ay doonayso inay ka tumaatido Washington. waxaana kamid ah meelahaasi in ay si weyn oo baaxad leh ay u taageerto dan kasta oo Mareykanka ka dhan ay ku jirto dowladda Tehran ee go'doonsan dhaqaale ahaan oo ay u furto albaabada dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale inay shidaalka ka iibsato taasoo sidoo kalena ay siiso wax kasta oo tiknoolajiyada maanta u baahan tahay iyadoo markii horeba dowladda Mareykanka iyo reer galbeedku ay sida finta dhagahooda uga sii qaylinayay talaabada ay qaaday Moscow ama xukuumadda Putin. waxaa taasi dheer in ay dowladda dalkaasi sidoo kale ay diido gab ahaanba inay kala shaqeyso qaramada midoobay hay'adaha kala duwan xayiraadda iyo cadaadiska lagu sii hayo xukuumadda Pyongyang ee hogaamiye Kim Jong Un iyo sidoo kale inay u hurto agabka iyo raashinka cuntooyinka iyo tiknoolajiyada uu u baahan yahay Mr. Kim si uu u sii wado xuduudda horumarasa ee hubka nukliyeerka ee wadankiisa iyo inuu handado mararka qaar koodna gilgilo magaalooyinka waaweyn ee dalalka dariska ee gacanka Korean Peninsula iyo badda the East of Japan ee wadamadaasi bariga Asia. arinta si xoqday dowladda dalkaasi Shiinaha waxa weeye toddobaadkii hore xukuumadda waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo u qaabilsan ayaa warmurtiyeed soo saaray xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in la abuuray wax loogu yeeray aqalka Shiine oo hoos imaan doona wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo loo bixiyay China House. sidoo kale waxa loo jeedaa the Office of China Coordination ama xafiiska isku xidhka Shiinaha. arintan ayaa waxa ay ka cadaysay xukuumadda Beijing hase yeeshee tafaasiil uu ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka qadiyatan ayuu ku tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee xukuumadda Mareykanka u go'aansatay inay abuurto wax loo bixiyay China House ay noqon doonto si loo hubiyo ayaa leeyahay sida ugu wanaagsan ee mas'uuliyad leh ee u maamuli karto xukuumadda Washington marka ay noqoto la tacaalista iyo la tartamida ayuu yiraahdeen jamhuuriyadda dadka ee dalka Shiinaha ee People's Republic of China PRC. warmutiyeedka la soo saaray waxaa kaloo lagu laray in xukuumadda Washington ay garawsatay inay haatan tartanka labada dal uu yahay mid dhinac kastaba gaari oo ay ku jirto dhaqaalaha militariga saameynta iyo siyaasadda arrimaha dibadda sidoo kalena ay qayb ka sii tahay duulaamada waaweyn ee dunida qaarkood ay sameynayaan Shiinuhu uu ka gabangaabsanayo gabi ahaanba in uusan wax ku darsan. si kastaba ha noqotee sida ay wararka hadirta ay sheegayaan labada dal ayaa waxaa ka soo idlaatay
kana buuxsamay haruubkii gorsii horeysay ayaa xukuumadda dalka Mareykanka madaxweynaha Joe Biden oo la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha shirkii Bali bishii October ayaa waxa uu sheegay inuusan hadeerta diyaar u ahayn waa Biden inuu dagaalkii qababaa dib u furo annaga uma baahnin ayuu dagaalkii qababaa cusub hase yeeshee waxa ay sheegayaan dhammaan xeelerayaasha gobolka iyo kuwa qaada dhiga siyaasadda inay taas kaliya ahayd afgobaadsi balse arrintu ay sii qararaa doonto Xi Jinping ayaa dhowr jeer wuxuu ku celceliyay in dawladda dalkiisa Shiinuhu ay yihiin dad ku wanaagsan mar walba dabciga qabow iyo siyaasadda nugul laakiinse marka ay noqoto in la darqiyo ciduna aysan ka faa'iidi doonin waaxda Pentagon-ka dalka Mareykanka ayaa warmurtiyeedka ay soo saartay rubuc dhamaadka sanadkan waxa ay ku tilmaantay inay ogaatay in gantaalaha hubka nukliyeerka ee dawladda dalkaasi ay doonayso inay biirsato uu noqon doono mid gaarsiisan ilaa iyo 1500 oo gumc marka la gaaro sanadka 2035 taasoo ay ku tilmaantay inay muujinayso hamuunta faraha badan ee dalka Shiinaha ay u qabaan inay gacanta ku dhigaan hubka casriga ah ee nukliyeerka oo si badan tiyo hadeerta kaliya la ogyahay wax ka yar 400 oo gumuc oo nukliyeer inay haysato isku soo wada tuuto siyaasadda 70 jirka ahayd ee lagu waday ee dawladda dalkaasi xukuumadda Washington ay ku waday xukuumadda Beijing waxay u egtahay ciyaar kale oo hadeerta ay doonayso inay la ciyaarto dalal ay kamid tahay Soomaaliya barnaamijkeena labaad ee warwareyn ay ku eegi doonaa bari hadii ay idmo sida ay dawladda dalkaasi ay sidoo kale ay u diyaarinayso siyaasad tan lamida inay kula dhaqanto Soomaaliya oo Mareykanka